Geçtiğimiz hafta toplam 15 kişiden oluşan bu ekip koox ka kooban ilaa iyo 15 qof ayaa subaxii soo gaaray qunsuliyadda xilligaas oo ay saacadu u dhaxaysay abaarihii 9 iyo 50 daqiiqo ilaa 12 barqanimo. Hard disk sökülüyor. Gittiğimiz Macaristan'da da waxayna ku kulmeen halkaasi. Marka hore waxaa la kala furfuray kaamirooyinkii ammaanka ee qunsuliyadda. isla maalintaas Jamaal Khashoggi wuxuu ku soo laabtay Istanbul isagoo ka yimid London oo uu ku maqnaa. wuxuu durbana u gudbay qunsuliyadda abaarihii 1 duhurnimo waxaana la socday gabadhii u dooneed ee Khadija. wixii markaasi ka dambeeyayna dib looma arkin. dabcan waxa ay leeyihiin xasnaad diblomaasi sida uu dhigayo axdiga Vienna, balse taasi ayaa ah waxa laga wada hadlayo. madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa dhowaan ka hadashay arrinkan. waxay u badan tahay in hadda laga doodi doono axdiga Vienna. lama aqbali karo in dadka lagu beegsado qunsuliyadaha. waxaana la arkay in saacadihii hore ee maalinta uu dilka dhacay ay 15 Sacuudiyaan ah oo isugu jira laamaha ammaanka ay dalkeena soo galeen. ülkemize geldikleri görülüyor. waxaa la xaqiijiyay in 6 ka mid ah dadkaasi ay dalka ka baxeen 6:00 galabnimo halka 7 kalena ay dalka ka baxeen 7:50 daqiiqo iyagoo raacay diyaarad qaas ah. Cemal Kaşıkçı'ya benzetilmeye çalışılan bir diğer kişiyle yanındaki şahsın da waxaa la xaqiijiyay ninkii xirnaa dharka iyo ookiyaalaha Khashoggi iyo nin kale la socday ay Riyaad u ambabaxeen habeenkii. maalinta ay dhacaysay arrinta waxaa shaqaalihii ku sugnaa qunsuliyadda la isugu geeyay qol halka shaqaalaha kale la fasaxay maalin ka hor. aynı sebeple izin veriliyor.